Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. beri baa wax jirtay tuulo yar. tuuladaas waxaa ku noolaa dad yar oo kooban, waxayna lahayd tuuladaas buuro waaweyn oo ku wareegsan. buuraha agtoodana waxaa ku yaala god aad u weyn. godkana waxaa ku jiray rooxaan. haddaba rooxaantaas waxay ku qaraabin jirtay gacanteeda, waxayna qabsan jirtay wax kasta oo agaarkeeda maraya. haddaba habeenada ka mid ah, nin ka mid ah dadka tuulada oo meesha maraya ayaa wuxuu arkay gacanta rooxaanta oo godka ka soo baxaysa. kadibna ninkii wuxuu bilaabay inuu aad u qeyliyo oo uu aad u cabaado, isagoo leh wargi qabta naagtan rooxaanta ah. rooxaan ayaa halkan ku jirta eedada guryihiina gala oo ha kasoo bixinina. gacantii rooxaanta ahayd ayaana waxay soo ceersatay ninkii, balse ninkii wuu ka badbaaday wuxuuna galay gurigiisa isagoo aad u naxsan. gacantii rooxaanta ahayd ayaana waxay bilowday inay guryaha kale ee dadka tuuladu ay degan yihiin inay albaabka ku garaacdo, laakiin qof walba oo dadka tuulada ka tirsan wuu ogaaday inay albaabka soo garaacayso gacantii rooxaanta ahayd. qof ka mid ahna kama furin, wayna wada aamuseen. kadibna gacantii rooxaanta ahayd oo tuulada dhex wareegaysa ayaa waxay aragtay nin ka mid a dadka tuulada oo banaanka gurigiisa jiifa oo aan ogeyn wax tuulada ka dhacaya. kadibna gacantii rooxaanta ahayd ninkii waxay la soo aaday godkeedii. ninkiina wuxuu bilaabay inuu qeyliyo isagoo dhahaya ibadbaadiya dadow, laakiin cidno uma soo bixin oo ma badbaadin. gacantii rooxaanta ahayd ayaana ninkii la soo aaday dhankii godkeedii. subaxdii markii la gaaray, nimankii tuulada ayaa isku yimaaday iyagoo dhahaya maalin walba tuulada qof ayaa ka maqan oo la waaya, qofkaasna lama arko meesha uu jaani cirib dhigay, ee maxaan sameynaa? haddaba mid ka mid a dadka tuulada ayaa yidhaahday xalay anoo maraya god weyn oo u dhow buuraha ayaa waxaan arkay gacan weyn oo godka ka soo baxaysa. gacantaasna waa tii cuntay ninkii xalay la waayey. mid ka mid a odayaasha tuulada ayaa yidhi haddaba waa inaan go'aansanaa sidii aan gacantaas uga badbaadin lahayn dadka tuulada, maadaama ay sabab u tahay tirayarida dadka tuulada. qorshe ayaan inii hayaa. qorshahana waxa weeye inaan xirno qof ka mid ah dadka tuulada, kadibna aynu geyno godkaas agtiisa. gacanta rooxaanta ahna markay jiidato qofkaas aynu ka dabagalno, kadibna ugu tagno meesha ay joogto, kadibna aynu dilno rooxaantaas. dadkii ay naga qaadatayna aan kasoo badbaadino hadday nool yihiin. nimankii tuulada ayaana isfirfiriyey, waxayna ku doodayeen kana shirayeen qofka ay xiri lahaayeen. haddaba mid ka mid a dadka tuulada oo xaasid ahaa ayaa dhahaya odaygan bidaarta weyn ee duqda ah aan xirno, isaga ayaa cimrigiisa soo qaatay. kadibna dhammaantood go-aankaas way ku raacayaan, waxayna xirayaan odayga duqda ahaa, waxayna usoo wadayaan dhankii godka. odaygiina wuxuu ku qaylinayaa adeerayaalow iska kay dhaafa, caruurteeda yaa wax ii siinaya, adeerayaalow iska kay dhaafa. godkii markii ay keeneen odaygii waxay istaageen geed u dhow godkii. kadibna gacantii rooxaanta ahayd ayaa soo baxday, waxayna jiidanaysaa odaygii. markii gacantii odaygii godka la gashay ayay soo wada yaaceen dadkii tuulada, waxayna imaadeen godkii agtiisa. mid ka mid a dadka tuulada ayaa qorshe soo jeediyey. qorshahaas oo ahaa inay qodaan godka afkiisa, kadibna ay raacaan xariggii ku xirnaa odaygii ay godka geliyeen, ayna kasoo badbaadiyaan rooxaanta. kadibna go-aankii ayay isla wada qaateen, waxayna raaceen xariggii, waxayna soo aadeen dhankii odayga duqda ahaa. kadibna waxay arkeen odaygii oo meel ku xirxiran. kadibna waxay bilaabeen inay ka furfuraan xariggii ku xirnaa. markay xarigga ka fureen waxay arkeen rooxaan ilka dhaadheer oo godka dhexdiisa ku jirta. rooxaantuna waxay ahayd mid labada gacmood ay go-an yihiin. gacmaha ka go-aanna waxay ahaayeen gacmaha ay ku qaraabin jirtay oo dadka tuulada ay ku cuni jirtay. kadibna dadka tuulada waxay arkeen dadkii la waayey oo ku xiran godka. kadibna mar kale ayay isku yimaadeen. dadkii tuulada waxay bilaabeen inay ka tashadaan sida ay ku dili lahaayeen naagtan rooxaanta ah iyo sida ay u badbaadin lahaayeen dadka tuulada ee meeshan ku xiran. haddaba mid ka mid a dadka tuulada oo ahaa mid xaasid ah ayaa yidhaahday odaygan duqda ah ayaan siinaynaa naagtan rooxaanta ah, kadibna inta ay ku mashquulsan tahay rooxaantu waan dilaynaa. odaygii markuu hadalkaas maqlay aad ayuu u naxay, wuxuuna bilaabay inuu calaacalo oo uu aad u naxo. kadibna ninkii ayaa qaaday odaygii duqda ahaa, wuxuuna u geeyey naagtii rooxaanta ahayd. rooxaantiina waxay bilaabaysaa inay labadeeda gacmood soo qaado, kadibna cunaha ay qabato odaygii. dadka tuuladuna waxay bilaabeen inay mindi soo qaataan, kadibna gacmihii rooxaanta ay laba u kala jaraan. dadka tuuladuna waxay bilaabeen inay ka furfuraan dadkii ku xirnaa godka. sidaas ayayna ku badbaadiyeen naftooda iyo nafta dadka tuulada.